dawadayaal dhammaantiinba habeen wacan dawadayaal waxaan ku soo dhawaada waxaan socdaa si toos ah in bogga internetka gaar ahaan in bogga daawo waxaan ku suganay halkan aan joogno waa dhakhtarka weyn ee caasimadda Djibouti ee loo yaqaano BLT inkastii oo wararka dadka qaarkood ay ku baahinayaan baraha bulshada ay yihiin kuwo aan sal iraatoon lahayn saacadan aan joogno waa ku dhawaad 10kii habeenimo waxaan ku sugannahay dhakhtarka weyn ee BLT marka hore waxaan jeclahay bal inaan si guud ahaanad aan idin sharxo waxyaabihii ka dhacay maanta halkan in ku dhawaad 4tii iyo barkii saacadu markay ahayd ayaa dab u qabsatay xarunta loo yaqaan CAM xarunta CAM waa qayb ka mid ah dhakhtarka BLT laakiin waxay qaabilsan tahay in kaydka alaabta muhiimka iyo dawooyinka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Djibouti goordhow wax la socon doontaan soo gudbin doonaa waraysiyo aan la yeelanay kusimaha in agaasimaha guud ee xarunta CAM Dr. Waberi oo isagoo ka hadlay wixii soo gal dhakhtarka in CAM gaar ahaan qaybta CAM loo yaqaano iyo waliba agaasimaha guud ee dhakhtarka BLT Zakariya Cawlad oo ka warami doona isaguna in haba yaraatay dhakhtarka BLT waxana uu soo gaarin baad ka sanadka ka soconaya in hawlihii gurmadka laakiin waqtigan aan joogno 10 habeenimo dabka waa la xakameeyay oo dabkaasi waxa uu yahay mid la baqtiyay oo ka qayb qaateen gurmadka ciidanka boombiyeega Jamhuuriyadda Djibouti iyo waxyaabo kala duwan ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Djibouti dabkaasi waxa inta badan la sheegay in looga baayay inuu qabsado qaybta oksijiinka ee dhakhtarka Buena BLT taasi oo la sheegay in lagu guuleystay oo la xakameeyay guud ahaan dhakhtarka BLT waxa garab ah xarunta CAM dabku qabsaday oo iyadu waa xarunta lagu keydiyo dawooyinka laakiin Jamhuuriyadda Djibouti wasaaradda caafimaadku ma aha oo kaliya goobta kaliya ee lagu keydiyo dawooyinka halkan waxaa jira laba meelood oo kale oo iyaguna ka tirsan caasimadda Djibouti oo ku jirtaan sawirada soo socda oo gaar ahaan xarunta PK 12 halkan marka la sheego in dhakhtarka BLT gaar ahaan qaybta loo yaqaan CAM dawooyinka in lagu keydiyo waxa khasaaruhu soo gaadhay 10 marka loo qaybiyo meel kaliya waad qorsan halkan isaguna waa dhakhtarkii in BLT dhakhtarka BLT oo saacadan aan joogno hawlihiisu ay cad socdaan sida uu sheegay agaasimaha dhakhtarka BLT Zakariya Cawlad dhakhtarka BLT haba yaraatee in hakad kuma jiro hawshiisu waxaana ay tahay hawlihiisu mid ka soconayo waad qorsan halkan qaybihii kala duwan dhakhtarka BLT shaqaalihii baa jooga in bukaankii si wanaagsan baa dawooyinkii lagu wadaa iyadoo subaxana si wanaagsan hawlihii caadiga ay u socon doonaan isla markaasina la soo gabagabiyay xaaladihii dabka waxaana goordhow aad ka heli doontaan macluumaad dheeraad ku saabsan intaasi in qaybta in aan la yeelanay waraysigaasi agaasimaha dhakhtarka weyn ee BLT ee Jamhuuriyadda Djibouti Zakariya oo ka hadlaya in haba yaraatay BLT wax khasaare uu soo gaadhay sida lagu baahiyay baraha bulshada oo dadka qaar xataa kuwa aan xaqiiqda Jamhuuriyadda Djibouti aan warkaahin ay ka warrameen dhakhtarka BLT inuu caawa uu xiran yahay oo dab weyn uu qabsaday waad ku doontaan oo ka buugi doontaan waraysigaasi agaasimaha dhakhtarka BLT sidoo kale waxaan ni xaqiijinayaa saacadan aan joogno in xaruntii CAM hawlaheegu ay si wanaagsan u socdaan oo in xarunta CAM dawooyinkoodu ay yihiin kuwo in kaydku uu jiro isla markaana in mataqaanay ay jiraan laba meelood oo kale oo lagu keydiyo dawooyinka muhiimka guud ahaan ummadda reer Djibouti in dabkan in marka la eego in waa masiibo dabiici oo Ilaahay uu keenay iyadoo lagu jiro xilliyada qabsiinka laakiin ma aha masiibo ka dhacda dalkaaga in muwaadin in qaran ka tirsan uu ku farxo maxaa yeelay dhakhtarka BLT haddii wax soo gaadhaan waxa dhakhtarka BLT wax ka noqonayo waa walaalka waa hooyada waa ilaadeerka waa aabaha dhakhtarka BLT dadka lagu hayo waa dadkiina ma aha in lagu faano oo mataqaanaaye in la buubuliyo wararka in xaqiiqada ka fog ee ku aadan in mataqaanaaye in dhakhtarka BLT in soo gaadhay in khasaare weyn BLT waxaan isku dayi doonaa goordhow bal inaan soo galo oo aragtaan in sawirada xaqiiqda aad ku bogotaan dhakhtarka BLT oo isagana in hawlihiisu ay si wanaagsan u socdaan kaasna waxaan i xaqiijinayaa in haba yaraatee dhakhtarka BLT khasaare weyn uu soo gaadhin hawlahooduna uu si wanaagsan u socdo in halka dadkii bukaanka iyo bukaanjiifkii ayaa jooga in dhakhtarka BLT waa qayb ka mid ah halkan ku sugan tahay in wax soo gaadhay oo khasaaraha ma jiro qorsadii caadi u socotaa in dadkii bukaanka iyaguna mataqaanay meelooda lagu hayaa waxaan jeclahay inaan bal dadweynaha reer Djibouti jooga in dal iyo dibadba ay ka bogtaan xaqiiqda dhakhtarka BLT ee caasimadda Djibouti oo wararka qaar ay sheegayeen in dab weyn oo khasaare dhaliyo soo gaadhay dhakhtarkiina isla markaasi uu yahay mid hawshiisii joojiyay
taasina waa been waxaad kaga bogonaysaan sawirada halkan aad ku arkaysaan dhakhtarka biiltiye sidan ayaa loo shaqeynayaa waa qaybihii dhakhtarka dadka bukaanka la dhigayay waa idinkaa arkaya oo mataqaanaa si wanaagsan u arkaya dhakhtarka biiltiye in hawshiisa ay caadi u socoto dadweynaha reer Jabuuti waxaan ka wargelinaynaa in habeerta dalkaasi ka dhacay masiibada maanta caasimadda Jabuuti uu yahay mid ku kooban oo keliya xaruntaasi كام لو يقانو دوي تلادغو xaruntaasi oo iyadoo ah la sheegay in 10 marka loo qaybiyo qayb ka mid ah uu soo gaaray khasaare taasna ayna ahayn oo kaliya guud ahaan in kaydkii dawooyinka ee Jamhuuriyadda Jabuuti uu haba yaraatee wax khasaare uu soo gaaray waxaan jeclahay bal dadka qaar in aan baraysto salaam calaykum habeen wanaagsan magacaaga sheeg Zainab bal ka waran bal dareenkaaga dabka muu soo gaaray halka uu hul markuu soo galgiyay alxamdulillah waan caymadnay waan soo geynay dadkii ilaahay ma hadisay dabeetana dawladdeedii baan soo gaadhay laakiin dhakhtar wax soo gaaray ma jiro may dhakhtar wax soo gaaray ma jiro alxamdulillah dawladdeedii baan soo gaaray qofkii bacad ugu yimid biyana siiyay ama ay armeeyay garaacaday leeyihiin oo qeeray bisaan waa uu dhammaan dhakhtarkii hawlihiisa adeeg bal wada adeeg wala واتهاي وهاي كاسين dadka halka ku jira qoysaskooda wayaguna dareenkooda lagu warramay dadka in haba yaraatay waxna ay soo gaarin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh habeen wanaagsan asli bal laga waran dareenkaaga qofka ma soo gaarin caawa baraha bulshada waxa la leeyahay farkii biirtiyay khasaare soo gaaray farkii waa la kala kacay aad kaga jawaab sameeyaas waa kan dad abayaalkiisa uu jiifa waa kan waa diabetic ma sha Allah qatis maniga ruuxa soo jooga may walaal farmi ma sha asagaaba gacmihiisa ku wadi Dr. Mustafa oo shaqada saqriisi oo kitaab iyo duuliyoodin istusla markii dawaa loo yeeso oo kala qaaday abay diabetic weeyaan qasabada kii loo keenay ما سند waxay lagu waramaysay dareenkayga dhakhtarka biiltiye oo aan dhex jirno waqtigan xaadirkan sabarkaysaana wax dhibaato uu soo gaaray dadka bukaanka iyo qolalka lagu hay dadka bukaanka reer Jabuuti haba yaraatee ma jirto dadkaas u arkayseen si lagu waramayeen waa xaqiiq waxa saacada joogna waa ku dhawaad tobankii habeenimo halkan dhakhtarkaasi biiltiye oo maanta isla markiiba uu soo gaaray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed xubno ka mid ah xukuumaddiisa oo wasiirka caafimaadku ka mid yahay si dadka u soo gaan dawadayaal waxaan jeclahay in goor waxa uu socon doontaan waraysiyo faahfaahsan oo aan fahmi doono arrinkaasi maanta ka dhacay caasimadda Jabuuti gaar ahaan dadka qabsaday xarunta ka bogan doontaan waraysi khaas ah oo la yeelnay agaasimaha kumeelgaadhka ee maqsimaha agaasimaha dhakhtarka Kam qaybta loo yaqaan dawooyinka iyo sidoo kale agaasimaha dhakhtarka weyn ee biiltiye Zakariya Cawlad isaguna ka waramaya oo ka hadlaya hawlihii kala duwanaa ee soo gaaray dhakhtarka biiltiye waxaa la soo doontaan goordhow waxaan naga tagayaa dhammaantiinba nabadgelyo iyo amaan Allah